intii aanan rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyoon Maka waxaa ku wada noolaa wiil iyo gabar dhalinyaro ah oo habar wadaag ama ilmo habaryar ah, kuwaas oo si xad dhaaf isku jeclaaday oo inta laba qof ay isjeclaan karaan isjeclaaday. isagu waa wiilkee waxaa la oran jiray Abu Caas Rabiici, iyaduna waa Zaynab Maxamed bin Cabdullaahi ibn Cabdimudalib. kadib Abu Caas Zaynab aabaheed buu weydiistay ama ka doontay, rasuulkeenana waxa uu u sheegay inuu ka warsugo Abu Caas inta uu inantiisa la soo tashanayo. Zaynab markii aabaheed uu weydiiyay inay wax ka qabto inuu siiyo wiilka ay habaryarteed dhashay Abu Caas, jawaab ay kari weeday jacaylka dartiis. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu dareenkeeda iyo wajigeedii guduutay uu ka gartay in yarta lagu weeyahay, sidii buuna ugu guuriyay ilaa halkaas. qisada waa iska caadi oo si nadiif ah jacaylkooda ku socda labadaas ruux. waagii dambe reerkii oo isku baraaray oo janno adduun ku jira oo isku dhalay Cali iyo Umaama, Abu Caas ayaa galay safarka waagaas wuxuu ahaa mid lagu raagi jiray ama waqti badan baa Shaam lagu maqnaan jiray. waagii ama goortii uu soo noqday Abu Caas, Zaynab weyn oo cajab leh bay kala hortimid gacadiyaheedii. waxay uga warantay in aabaheedii Maxamed sallallahu alayhi wasallam loo waxyooday oo uu rasuul noqday, iyaduna ay rumaysay oo ay muslintay. wuxuu ku yiri oo maxaad iila sugi weysay? kadib waxay ku jawaabtay dee aabahay ma aanan beenna ma sheego, waan ogahay keligeena ma ahan ee dad badan baa muslimay, sidaas awgeed ayaan u muslimay sida hooyaday iyo adeerkay Cali iyo habaryartay Cismaan iyo saaxiibka Abubakar laftirkiisa ayay ku jawaabtay. Abu Caas Zaynab waxa uu sheegay in isaga uusan ka suuroobi karin inuu muslimo oo aabayaashiis uu ku wacad furo qir bay arintii tagtay. hase yeeshee jaceylkoodii ma dhaawacmin, waxa ayna ku heshiiyeen inay kala diin duunaadaan oo isku dulqaataan, sidaasna iskula noolaadaan. sidii bay noloshooda u qurux badneed oo iskula noolaadeen iyagoo kala diin ah oo muslim iyo gaal kala ah. maalintii dambe waxaa timid in muslimiintii Madiina ay u hayaamaan, labadii isxigtay iyo labadii isjeclaaba waqtiga ayaa kala dhaqaajiyay. Zaynab oo ilmeynaysa ayaa rasuulka u timid, waxayna weydiisatay inuu u ogolaaday in aanan laga haajirin oo ay ninkeeda la joogto. rasuulka sallallahu alayhi wasallam farxadeedii wuu u yeelay, ogolaanshiyihiisana wuu siiyay. ogow had sheekada markii halkaasi marayso waa intii aanan islaamka weli guurka diin ku xirin oo dadku isku mid ahayd. labadii walaalaha ahaa ee ka yaryaraa ee Ruqyo iyo Kaltuum waa Zaynabe waxaa kala guursaday ilmo Abu Lahab. mar kale inkastoo aabaheed iyo gacalkeedii kale oo dhami Maka ka dhamaadeen, haddana Zaynab iyo Abu Caas nolol jacayl oo liibaan leh ayay ninkeedii kula noolayd. Qurayshtii Maka oo dhami waxay si walba u sameeyeen ninkaas qaaliga ku ah ee Abu Caas oo ay jecel yihiin inay ka furaan gabadhan Maxamed rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam uu dhalay, taas oo ka ahayd fogeyn iyo rixin goysnimo ay muslimiinta iyo Nabi Maxamed ay wadadan lahaayeen. laakiin Abu Caas oo marwadiisa si xad dhaaf u jeclaa isla markaana ahaa nin leh gobonimo qofeed iyo sharaf ilaalin weyn, taladaas ay soo meersiiyeen ama soo marsiiyeen tolkiisa wuu ka diiday oo wuu ku celiyay. xitaa waxay u ballan qaadeen gabdho kale oo Carab ah inuu ka xusho midii uu doono iyo inta tiro uu doono, oo waxayna sheegeen inay siin doonaan. laakiin jacaylkiisa in lagu baayactamo wuu diiday, wuxuuna ka doortay inuu Zaynab si sharaf leh kula noolaado. hablaha ay la ordayaan iyo damacoodana wuu ka diiday. isaga Abu Caas bedelkiisa ilmo Abu Lahab labaduba waa ay fureen gabdhihii rasuulka Ruqyo iyo Kaltuum, iyagoo weliba si gunnimo leh ula dhaqmay. labadan lamaane iyagoo jacaylkooda cidlii cisa la waayay ayay mar kale arrin aad u weyn soo korortay. dagaalkii Badar ee reer Maka iyo reer Madiina ay isku heleen baa dhacay. Zaynab aabaheed iyo ninkeedii Abu Caas nimid bandhinac ayuu dagaalka kaga jiraa. goorta birta la isku afeystay oo la isku aslay, muslimkii ayaa ku adkaaday dagaalka. halkaas Abu Caas waxa uu ka mid noqday raggii maxbuusnimada loo qabtay, markii dambena madax furashada lagu xukumay. Zaynab oo walwal iyo murugo weyn soo food saareen markii ay heshay warka in aabaheed iyo ninkeedii midkoodna uu dagaalka ku dhiman oo ay nool yihiin, aad ay u farxday, waxayna qalqaalo u gashay inay hesho madax furashada ninkeeda laga doonayo. waxa ay heshay oo dirtay xoolo kale maadaama aysan haysan waqtigaas silis qaali ah ama katiinad qaali oo aad u qurux badneed, taasoo hadiyad ahaan ay uga heshay hooyadeeda Khadiija binti Quwaylid oo waqtigaas sanado ka hor sii mootaneed. katiinadii baa Badar la geeyay si Abu Caas loogu furto. kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa katiinadii arkay oo gartay inay tahay tii marwadiisii